xiisad culus ayaa caawa ka jirta gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ka gadal markii dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada Tirabeela ay halkaasi ku daabulaysa guudlawana waxa uu yiri ma dhici doonto in dowladda federaalka Soomaaliya ciidamada halkaasi ay keentaan dhaqdhaqaaqyo halkaasi ka sameeyaan magaalada Balad Xawana waxa ay martigelinaysaa sidoo kale xiisado kale oo isku gudban ka gadal markii ciidamada Jubbaland ay gudaha magaalada soo galeen soo dhawaada wade haday tahay markaaga ku gooreysay soo booqato halkan subscribe noo saar noo like garay muuqaalkan waad ku maasantahay soo booqashada anu ku hormarno wararka ka imanaya magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa ku waramaya in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda gudaha magaalada ay ka abaabulan yihiin waxaana labada dhinac kala taageeraya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabelle cali guudlaawa ayay wararku tilmaamayaan in ciidamada Tirabeela uu heebtiisa hoose ka qoranayo kuwaasi oo guud ahaanba uu doonayo inay kursiga ku ilaaliyaan maadaama villa Soomaaliya ay ka soo gooday guud ahaanba inay iska horwareejiso Sariic Abdulle iyo ciidamada Tirabeela uu wato ayaa degay guud ahaanba Elborka iyo aagiisa dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaana la tilmaamaya in halkaasi ay ka wadaan halka ciidamada maamulkaasi ayaguna ku sugan yihiin afaafka hore ee madaxtooyada halkaasina dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka wadaan maalmihii ugu dambeeyay isu biratumasho xoogan ayay dhinacyadu muujinayeen dowladda federaalkuna waxa ay dalacsiisay Sariic Abdulle kaasi oo darajadiisii hore ay mid kale uga dartay si markaasi uu la dagaalamo cali guudlaawe isla markaana guud ahaanba uu gacanta uga soo dhigo maamulka Hirshabelle dowladdu waxa ay doonaysaa in ciidamada ay kula wareegto Hirshabelle isla markaana ciidamada halkaasi ay geysay guud ahaanba ay ka dabageyso ciidamo kale oo dheeraad ah si meesha looga saaro madaxweynaha Hirshabelle cali guudlaawe xuseen oo ay xiniinyo taabteen madaxweynaha talada jooga Xasan Sheekh Maxamuud waxayse u muuqanaysaa hadda xiisadu inay wajiyo kala duwan yeelatay isla markaana dhinacyo kala duwan ay ku soo beerayaan dowladda federaalka Soomaaliya waxa la tilmaamayaa in guud ahaanba wacad ay ku martay in muddo 60 cisho gudahooda ay ka dhisi doonto dowlad kale oo aan ahayn tan Hirshabelle hadda ka dhisan gudaha magaalada Jowhar waxaana ay doonaysaa in markan dib looga celiyo gudaha magaalada Jowhar ciidamada Tirabeela oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo horaan dowladda farmaajo ay halkaasi uga soo qaaday waxaana la tilmaamayaa in dowladdu ay doonayso in dhaqdhaqaaqyo kale oo culus ay halkaasi guud ahaanba ka geysato dowladdu waxa ay ku eedeynaysaa cali guudlaawe xuseen madaxweynaha Hirshabelle in guud ahaanba waxba uusan ka qaban mudaxileedkiisan gudaha deegaanada Hirshabelle mar kalena aysan suuragal ahayn inuu hogaamiyo waxa kale oo ay ku eedeysay in deegaanada Hirshabelle uu isbaara dhigtay isla markaana guud ahaanba uu dhacay hantidii shacabka waxa kale oo ay ku eedeynaysaa in guud ahaanba tallaabooyinka iska soo horjeeda ee markaasi uu ku diidan yahay in guud ahaanba dagaalka dhinaca al-shabaab oo lagu soo ciribtirayo guud ahaanba uu ku hor istaagan yahay waxaana la tilmaamayaa inuu diiday in guud ahaanba dagaalka madambeesa lagu qaado deegaanada shabaabku ay uga harsan yihiin Hirshabelle waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay si weyn guud ahaanba uga gilgilanayaan maamulka Hirshabelle iyo eedeynta dowladda dhexe ee Soomaaliya uga imanaysa oo muddooyinkii ugu dambeeyay cirka isku sii shareertay dowladdu waxaa la tilmaamayaa inay qaadayso laba ujeedooyin oo guud ahaanba waaweyn kuwaasi oo ay doonaysa in guud ahaanba talada ay uga ceyriso cali guudlaawe xuseen madaxweynaha dowladda Hirshabelle waxay doonaysaa in ciidamada ay dul dhigto guud ahaanba deegaanada Hirshabelle iyo sidoo kale magaalada Jowhar oo fariisin u maamulka cali guudlaawe xuseen kaasi oo ay ku tilmaamtay dowladda inuu fadhiid yahay waxa kale oo guud ahaanba ay doonaysaa in doorasho iskeeda dowladdu ay ka qabato deegaanada Hirshabelle si markaasi guud ahaanba meesha looga saaro maamulka cali guudlaawe xuseen dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaana la tilmaamayaa in magaalada Jowhar ay martigelinayso ciidamada isku horfadhiya gudaha magaalada Jowhar ayaa la tilmaamayaa inay dhinacyadu kala taageersan yihiin dowladdu waxaa la tilmaamayaa in hadda ay doonaysa inay qaado laba qorsho oo waaweyn kuwaasi oo guud ahaanba meesha ka saari kara cali guudlaawe iyo taliskiisa waxaana ay doonaysaa in guud ahaanba gacanteeda ay ku soo celiso qorshaha iyadu ku hogaaminaysa guud ahaanba maamulka Hirshabelle waxaana ay doonaysaa inay geyso saraakiil markaasi dowladda dhinaceeda ka soconaya waxaase uga madax fiiqan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo hore u soo noqday wasiirka amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya isla markaana siyaabooyin kala duwan uga soo mid noqday xukuumadda talada joogta waxaa la tilmaamayaa in dhaqdhaqaaqyo xoogan hadda ay wado dowladda isla markaana waxa ay doonaysaa inay gabalkiisa dumiso cali guudlaawe iyo sidoo kale saraakiisha saaxiibada la ee fadhigoodu yahay magaalada Jowhar
waxaana la tilmaamayaa in qorshaha maalmihii ugu dambeeyeyba ay dowladdu siyaabooyin kala duwan ay uga shaqaynaysay haddana waxa ay doonaysaa in guud ahaanba ay qaranka ku dugto islamarkaana guud ahaanba meesha ay ka saarto dhaqdhaqaaq weliba oo ay dowladdu ku doonaysa in guud ahaanba meesha ay uga sii hayso. cali guudlawana waxaa la tilmaamayaa isaga inuu qaadayo tallaabooyin culus oo guud ahaanba xukuumadda talada joogta ka dhana si loo hor istaago qorshe weliba oo ay dowladdu doonayso. cali guudlawga waxa uu samaynayaa in ciidamo beeleedya uu ka qorto heebtiisa hoose si markaasi meesha looga saaro dhaqdhaqaaq weliba waanan ka tarjumaynin qorshaha dowladda islamarkaana guud ahaanba loo hakiyo. waxaa la tilmaamayaa sanay cabdulle iyo sidoo kale ciidamo xoogan oo watay inay ku sugan yihiin afaafka hore ee eraboorka caasimada hirshabelle, waxaana la tilmaamaya in sidoo kale uu doonayo in gudaha magaalada uu galo si markaasi dhaqdhaqaaqiyo ciidan halkaasi uu uga sameeyo. waxaa la tilmaamayaa in tallaabadu hadda ay faraha kasii baxayso islamarkaana dhinacyadu ay si weyn isugu biratumanayaan lama soo oga xiisada ka dhex xaluusanayo halka ay sardhigan doonto markana gobolka Gedo. wararka ka imanaya gobolka Gedo waxa ay tilmaamayaan in ciidamada madoobe ay usoo tallaabeen xad beeneedka islamarkaana dhaqdhaqaaqiyo xoogan ay hadda halkaasi ka wadaan. ujeedka ugu muhiimsan ee ay usoo tallaabeen ayaa la sheegay inay tahay in mar kale ay sabaabulayaan si markaasi dagaal toosahi ay uga qaadaan magaalada ay isku haystaan dowladda iyo sidoo kale ciidamada Jubbaland ee baled xawo. waxaana la tilmaamayaa hadda xiisadu inay wejiyo kala duwan yeelanayso ka gadaal markii dowladda Kenya ay dhowaan shaacisay inaanan la aqbali doonin tallaabo weliba oo aanan ka tarjumaynin guud ahaanba amniga deegaanada dowladda waddankaasi Kenya. waxaana la sheegayaa in hadda ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha magaalada Mandera ay hadda dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan gudaha magaalada islamarkaana xadbeeneedku ay soo dhoobteen. oo kale wararku waxa ay tilmaamayaan in dhaqdhaqaaqiyo xoogan ciidamada Jubbaland ay halkaasi ku sugan iyaguna ay halkaasi ka wadaan si ay u sii ambaqadaan guud ahaanba wejiga koobaad ee dagaal kale oo mar kale lagu wajahayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay halkaasi dhinacyadu isku hayeen. hadda waxaa la tilmaamayaa in guud ahaanba tallaabadu ay culus tahay. madoobana waxaa la tilmaamayaa in ciidamo tirabeela mar kale uu qoranayo si markaasi dagaal uga qaado dowladda dhexe ee Soomaaliya. dowladuna waxa ay doonaysaa inay hakiso dhaqdhaqaaq weliba oo madooba halkaasi uu ka aloosayo, halka sidoo kale dhaqdhaqaaqyadu ay ku sii fidayaan qaybo badan oo ka mid ah deegaanada gobolka Gedo. magaalada baled xawe ee gobolkaasi Gedo ayaa la tilmaamayaa hadda inay martigelinayso dhaqdhaqaaqyo xoogan oo iska soo horjeeda kuwaasi oo ay dhinacyadu kala abaabulayaan. ciidamada Jubbalandna waxaa la tilmaamayaa hadda inay kaabiga ku hayaan magaalada baled xawe ee gobolkaasi Gedo si ay u sii ambaqadaan guud ahaanba qorshaha ay ku doonayaan inay ku qabsadaan halkaasi. maalmihii ugu dambeeyeyna siyaabooyin kala duwan ayaa la tilmaamayaa in dhinacyadu ay uga digayeen si loo sii ambaqaado guud ahaanba dhaqdhaqaaqyo xoogan oo maalmihii ugu dambeeya halkaasi ka jiray. dowladuna waxaa la tilmaamayaa hadda inay hor istaagayso qorshe weliba oo markaasi guud ahaanba Axmed Madoobe uu ku doonayo in deegaanadaasi mar kale uga soo laba kaclayo. maalmihii ugu dambeeyana siyaabooyin kala duwan ayay dhinacyadu dignina culus uga soo saarayeen dhaqdhaqaaqyada militariga halkaasi ka soconaya. dowladda Kenyana waxa ay marinaysaa meeshii ugu dambeysay Madoobe iyo ciidamadiisa si loo hor istaago qorshe weliba oo markaasi ka dhana dowladda federaalka Soomaaliya. lama soo oga halka ay saldhigan doonto.